halkan waa magaalada Muqdisho waa meeshii aan ku dhashay ku barbaaray waxna ku bartay haddana waan ka shaqeeyaa marxaladihii kala duwanaa ee noloshayda halkan waxaa ka socday dagaalo kala duwan inkastoo hadda xoogaa nabad ah ay jirto haddana weli dagaalku ma dhammaan markan wuxuu u dhaxeeyaa dawladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab halkani waa iskuulka hoyga xamar waa meesha aan ka soo bilaabay safarkayga waxbarashada dhowr iyo 10 sano kadib maanta ayaan imaaday si aan warbixintan u sameeyo waxaana kula kulmay macallimadeedii xanaanada caruurta oo ahayd qofkii ugu horeeyay oo wax i bara aad ayaan u nasiib badanahay jawi degan ayay wax ku baranayaan caruurtan laakiin kol hore markii aan aniga iskuulkan dhiganayay xaalku sidan ma ahayn macallin Ayni 17 sano ka badan ayay halka macallin ka ahayd dagaalo qax iyo duruufo kale oo adag ayay caruurtu wax ku soo bari jirtay in anagoo group ah ilmahan sida aan wax ka yeeli lahayn ayaan ku tashanay kadib waxaan macnaha hogaamineed maadaama burbur uu jiro inaan macnaha nolosheena aan u quurno in caruurta Soomaaliyeed aan meesha wax ka barno marxabadaha aan ka gabano mar fasalada dhexdiisa aan ku garguurano sidaas dhibaatooyinkaas ayaa macnaha ku soo marnay oo anagana aan nafsadeen ugu warnay in caruurta Soomaaliyeed saas aan wax ku barno si ay mustaqbalka aysan u seegin halkan waa xaruntii ugu horeysay aan ka shaqo bilaabo markii aan xirfadda warbaahinta ku soo beeriyay waxa ugu jirtay cabsi badan ilaa haatan oo mid taagan waxaana u sabab ah duruufaha adag ee ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho dil caburin hanjabaad iyo afduub ayay waxay kala kulmaan dhinacyo kala duwan kulan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasta oo nagala socotaan halkan waa goobjoog ku soo dhawaada warka habeenimo aniga ah Aways Xajuno Aways Ar ayaa idin akhrin doona waxaa kaloo i waday qadiyad ah in dadka ay runta helaan in dadka ay xaqiiqda gaarto waa jirtay in qof la dilaayay laba qof la dilaayay idaacad la qalabkeedii la qaadanayay la xiraayay way jirtay laakiin haddana markasta dadka waxay fahmayeen oo warbaahinta ay ka dhex fahmayeen xaqiiqday ka dhex fahmayeen inkastoo ay Soomaaliya 30 sano ka badan ay burbur ku jirtay haddana weli dhanka ganacsiga tiknoolajiyada iyo hal abuurka safka hore Afrika ay kaga jirtaa dhalinyaro badan oo ay ka mid tahay Nujuum Axmed Xaashi oo burburkii kadib dhashay ayaa ah kuwo isbedel doon ah Nujuum waa farshaxaniiste waxayna iiga warantay sida ay farshaxankeeda ugu adeegsanayso inay isbedel ku samayso oo in nabadda qiimaheeda dadka ku tusto anu waxaan sameeyaa sawirada kala farshaxanka qaybihiisa kala duwan waxaan ka hadlaa nabadda waxaan ka hadlaa horumarka wadanka waxaan ka hadlaa dhalinyarada dhiirigelintooda waxaan ka hadlaa shaqo abuurka waxaan ka hadlaa waxbarashada shaqooyinka ugu dambeeya hadda aan sameeyay waxaa kamid ah dhismaha wadanka sawir muujinaya iyo sidoo horumar fiican uga socdo iyo muqdishada ama Soomaaliyeed maskaxdeeda ku jirta oo ah mid horumarsan jiilkeeni ku soo hana qaaday ama dhashay burburkii kadib nasiib uma yeelan inaan aragno Soomaaliya dhisan oo hanaan dawlad dhameystiran leh laakiin qaar badan oo naga mid ah waxay ku rajo weyn yihiin inay qayb ka noqdaan dhismaha dawladnimada Soomaaliya ee urdunka ah si ugu yaraan jiilka naga dambeeya u helaan nolol ka duwan ka fudud kana amni badan mid aan anaga soo marnay Bella Sheego BBC